السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال سودوادا waxaa la joogaa saaxiibkay Maxamed Ibrahim Pakistan xogayihii hore Nasaj ahna hadda gudoomiyaha SJS waxaan rabaa inaan waraysigan diiradda ku saarno dawladda go'aanka ay soo saartay isticmaalka wararka al-shabaab xeritaankii Cabdalla Muumin soo deyntiisii dib u xiridiisii iyo soo deyntiisa kale iyo sawirka ay muujin karto dawladda go'aankeeda iyo saameynta ay ku yeelan karto warbaahinta Pakistan soo dhawow Hubal TV ما mahadsantahay Sharmarke waa ku dhawaa Hubal TV runaantii Cabdalla Ahmed Muumin waxa la xiray 12 bisha October maalin galab ah isagoo u sii socda magaalada Nairobi xariga Cabdalla waxa uu yimid kadib markii shir jaraa'id ururada saxaafadda Soma Fesoj SJS SMSJ ururadii intay isu yimideen shir jaraa'id waxay ku qabteen xafiiskeena 10 bish oo maalin isniin ahayd shirkaas jaraa'id waxa looga hadlay marka warkii ama amaradii dawladdu ay ku soo rogtay faafinta wararka al-shabaab marka ujeedada meesha looga hadlay ma ahayn wararka al-shabaabka iyo website-yadoodii iyo maxaa loo daba kacay iyo maxaa loo xirmaa waxa looga hadlay saameyn intee la eg go'aanka dawladdu ku yeelan karaa warbaahinta madaxa bannaan taas waa horta waxa meesha looga hadlay dawladdu waxa ay qoonsatay marka warkoodii in war la dul saaro xilli ay dagaal ku jirto waa dareensanahay dawladdu dagaal ku jirta oo maartay al-shabaab ay kula jirta dagaalkaas ay al-shabaab kula jirta mid la mid ah warbaahinta ayaa waxay kula jirta dawladda ku garab taagantahay marka waxa loo baahan yahay marka Cabdalla marka xarigiisa wuxuu sababsaday in ay cabasho ka muujiyaan go'aankii oo dawladdu ay soo saartay inuu saameyn ku yeesho warbaahinta madax bannaan sida salahan oo kale go'aankaas inuu si dadban u saameeyo warbaahinta madax bannaan taasna ay keento khataro amni ay u keento warbaahinta khataro amni ay u keento saxafiyiinta sababtoo ah saala socotid maalintii warbaahinta madax bannaan ay ka hadashay dawladda hal mid laga rabay ururada warbaahintu waa stakeholder waxa waaye stakeholder waxay u yihiin wasaaradda faafinta waa dawladdeena waa wasaaraddeena waa anagu wasaarad kale ma qabo wasaaraddu waxa laga rabay inay warbaahinta madax bannaan isu keento ay dhahdo dagaalan ku jirnaa amaraan rabnaa inaan soo rogno amaradii inay warbaahinta madax bannaan ay saameyno ma rabno waxaan rabnaa inay warbaahintu nagala qayb qaadato dagaalka oo kaalay ayna dhahdo oo noo yeerto oo maartay laakiin waaba dhacdayba waxaan rabaa ururo badan baa shiray oo arintaas isugu yimid oo ka wada hadlay maxaa keenay in Cabdalla Muumin dawladda isaga ay bartilmaameedsato Cabdalla Muumin waxa uu hormuud u ahaa ururada saxaafadda ee hadlay waxa la og yahay Cabdalla Muumin hadii wariye la xiray inuusan ka aamusin hadii idaacad la xiro inuusan ka aamusin inuu mata hadda warbaahinta dadka saxafiyiinta difaaca ninka ugu horeeya ee hadla inuu yahay loo yahay saas darteed dawladdu waxa ay qorshaysay inay Cabdalla Muumin xirto si hadhowti warbaahinta kale ay ugu qoos qaadato hadii hadhowti sababtoo ah dawladdu talaabooyin qaadaysa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shalay wuxuu yiri warbaahinta talaaban ka qaadayna qaarna talaaban ka qaadna sharciga hor keenay qaarna talaaban ka qaadi doona cid walba oo warka al-shabaab ka sheegay marka taas marka ay tahay ujeedada Cabdalla loo xiraa waxay tahay berri cidii hadli doonta hadii wariye la xiro ama warbaahin la xiro inay ku qoos qaadato way dawladda dagaal bay al-shabaab kula jiraan waana ku bilowdo warkaaga maxaa diiday in dhowr jeer bay dawladda idin garab istaagtay warbaahinta madax bannaan maxaa diiday markan in dawladda la fahmi waayo maadaama dagaalkan ay dawladda go'aansatay in uu yahay shabaab lagu soo afjaray in ururada warbaahinta ay ka gaabsanaan maxaa diiday horta markii oo dawladdu waxay mas'uul ka tahay amniga dadweynaha oo dhan oo ay saxafiyiintu ku jiraan saxafiyiintu ma hubaysna waa wariyaal masaakiina oo qaata $100 ama $200 warbaahinta mushaarka ka qaataan lacag badan ma ah ma awoodaan maanta inay staff inta sameystaan ay meel galaan waxa hore u dhacday marka gadaalan ku celina hal waxaan ku celinaa 2007 iyo 2016 2007
markii muqaawamada dalka ay ka bilaabatay shabaabku waxay soo saareen awaamir oo ah inaan warka dawladda la sheegi karin cid sheegtana la dilo dawladduna waxay soo saartay amar ciddii warka al-shabaabka sheegtay inay xirayso marka wariyaal badanaa qaxay oo markaas waxaa loo qaxay Hargeysa Nairobi Djibouti wariyaashaas qaxay waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta al-Cadaala oo inta Hargeysa u qaxay asigoo ka qaxaya awaamirta labada dhinac ay soo saareen oo haddana wuxuu sii qaxay Djibouti marka gadaal aan ku celinayo 2007 meeshii warbaahintii saxafiyiinta ay joogeen maanta joogaan dawladdu marka ma awoodo inay protection siiso saxafiyiinta shabaabku waxay dhaheen haddii warka dawladda loo maaratay warkeena la sheegi waayo warka dawladda loo hogaansamo talaabaan qaadayna dawladdu waxay tiri cidda warka al-shabaabka sheegtay waa xirayna marka dhibaatada meesha waxa haystaa waa saxafiyiintii masaakiinta ahay ee aan amnigooda difaaci karin oo muqdisho jooga oo mushaharkooda uu yar yahay marka waxaa la rabay in wasaaraddu inta aysan maaratay talaabadan aysan qaadin oo warbaahintu aysan hadlin inta la waco warbaahinta madaxa bannaan la yiraahdo war ama awaamiira soo saarayna warbaahinta awaamir aan ku soo rogayna warbaahinta awaamirta aan ku soo rogayno inay saxaafadda madaxa bannaan iyo saxafiyiintana saameeysa ma rabno at same time ma rabno in propaganda loo sameeyo nimanka al-shabaabka dawladdu la dirayso marka taas waxa imaalahay xal dhexdhexaad imaalahay laakiin hadda tan taagan waxay sababaysaa in saxafiyiin badan ay dalka ka qaxaan sida 2007 waxaan rabaa waxa jira wariyayaal aad u buunbuuniya wararka al-shabaab deegaanada shabaab heestaan inta tagaan warar ka soo sameeya waana ogtahay haddii shabaab loo sameeyo marketing ama suuqgeyn ama la buunbuuniyo in ay dhabarjab ku tahay dawladda iyo dawladnimada su-aasheedu waxay ahayd markan maadaama culays zaa'id uu jiro maxaa diiday ururada inay dawladda la fahmaan arrintan waa point aad u fiican runtiina horeyna waa uu bilaabay dawladdu dagaalka ay ku jirto saxafiyiintu way ku garab taagan yihiin waxa kaamirada wata ee askariga xabadda ridaa garab taagan ee front line-ka warka ka soo duuba waa saxafi waxa laga sii daynayana waa warbaahin oo taas micnaheedu ma ahan in shabaab propaganda loo sameynayo laakiin ujeedada waxay tahay haddii saxafigii labada dhinac uu barashar kaga yimaado isna difaaci karin maxaa u tala ah dawladdu protection ma sii kartaa aan u soo noqdo kiisa Cabdalle intaada kiiska taas aadin waxaan rabaa inaan ogaado haddii wariyayaasha ay dawladda garab taagan yihiin oo ay kaamirada furunta la taagan yihiin dhinaca kalena haddana ay dhahaan wararka shabaab aad tabinaynaayo waa buunbuuninayna wariyayaasha soo lama dhihi karo waa labada af ee seeftaba way isticmaalayaan shabaabna way garab taagan yihiin dawladdana way garab taagan yihiin okay hal eray aan kaa sax erayga buunbuuninta aan kaa sax marka haddii maantay ay war u dhaco salahaan oo kale qarxa u dhaco waa war qasaare hadduu geystana waa feedback qarxi dhacay taas shacabku xaqi u leeyihiin inay ogaadaan maxaa buunbuunina marka waxaa buunbuunin ah sargaal al-shabaab inta warkiisa la soo qaado in idaacadda laga daayo buunbuunin waa taas anagu cidaan ku waafaqayn lama arko taas waa ka soo horjeednaa waxaan uga soo horjeednaa sababtoo ah awaamiirta dawladdu ay soo saarayso anaga dawladdeena oo dawlad kalma qabto ayadaan ku garab taagana marka waxaa la rabaa dawladda in ay dhinacna ay saxafiyiinta ay ma arkin oo ay dhinacna ay ugu naxariisato dhinacna sharcigii iyo dagaalkii ay ku jirtay lagu garab istaago gudoomiye adaa wata waan ku fahmay haddii ay qarax al-shabaab geystaan waa war khasaaraha uu geystayna isaga laftirkiisa in laga daba tago feedback laga sameeyo ayadana waa war waan ku fahmay laakiin in codkooda iyo wararka al-shabaab la qaado la buunbuuniyo taasaa buunbuunina waxaan kaa rabaa marka soo ma naqanayso oo keliya haddana saxaafadda inaad u tilmaamaysaan in al-shabaab markay qarax geystaan in warbaahinta u isticmaalaan oo marka kale codadkooda aan la isticmaalin al-shabaabna markaas soo ma bilaabaya in qaraxyada ay xoojiyaan maadaama kaas uu niis naqanayo okay horta hal mid oo muhiim ha jirto warka iyo waxa warku noqonayo sababta warka shacabka u baahan inay ogaadaan waa xuquuq dastuuri ah in
qofka muwaadinka uu ogaado waxa ku hareeraysan uu ogaan karo wariyahana waa waajib wuxuu ka saaran yahay wixii dhacay inuu sheego horta taas waa mid haddana idaacadaha waddanka ka jira gaar ahaan gobollada muqdisho iyo maamul goboleedyada horta saraakiil al-shabaab warkooda lagama sii daayo taas waa dhimatay muqdisho laakiin waxaa la rabaa oo wasaaradda warfaafintu inay caddaysan la rabaa warka al-shabaab ayaan la sii daynanaa qaaxid u baahan sababtoo ah cabdalla axmed muumin waxa uu iyo ururada kale warbaahintu waxay cabashada ka muujiyeen waxay tahay warkan waa maldahan yahay waa isku xiran yahay waxaa u baahannahay in dowladdu ay caddayso waxa maxaa loola jeedaa baahinta al-shabaab warkooda maxaa loola jeedaa taas markaan ku leeyahay ururadii warbaahinta way ka hadleen waxay dhaheen konseeraan qabnaa dowladda hanoo faahfaahaysa waxaa cabdalla muumin xabsiga la geeyey hadda 45 beri oo waxaa loo diray oo kiiskiisa la baaraayo oo xabsi ku hayn ah maraa la xiray waa la soo daayey haddana waa la xiray haddana shalay okay waxaa dib loogu diray cabdalla xaalad caafimaad wajahaya kelidaa xanuunayso dhakhtar inuu aado uu u baahan yahay inuu arko oo dhakhtarkiisa Nairobi asigoo dhakhtarkiisa u socda haddana garoonka laga qabto waa la xiray waxaa la yiri bayl ama maaragtay damaanada bannaan ku joogtaa ma safri karta warqadda damaanada marka uma qornayn inuu safri karo uguma caddayn marka markaan taas uga soo tagno shalay haddana damaanad kalaa la siiyey shalay galab hadda damaanadu bannaan ku jooga taasoo micnaheedu hadda inuusan safri karin marka ma safri karo warbaahinta lama hadli karo intii uu baaristiisa ay socdo laakiin muxuu xabsiga ku mutaystay xabsigu wuxuu ku mutaystay shaqadiisii ahayd difaacidda iyo u qareemida saxafiyiinta kow iyo dowladda inuu weydiistay oo asiga iyo kaligiis maaha ururada SJS iyo ururadii kale warbaahinta inay wasaaradda warfaafinta weydiistaan inay bayaanayso awaamiirtan wax loola jeedo saamayn inteen la eg ay ku yeelan karaan warbaahinta madaxa bannaan in laga hadlo amniga saxafiyiinta wasaaraddu albaabkay xiratay waxay tiri ciddii ka hadasho waa xabsi marka taasna waxay caqabad xun ku yeelanaysaa saxafiyiintii iyo warbaahintii iyo mustaqbalkii xorriyadda saxaafadda iyo midda hadalka saaxiibkay cabdalle marka hore caafimaad u rajaynaya marka xigta waxaan rabaa maadaama damaanad lagu sii daayey warka maxkamaddana markuu soo baxay haddii aanan khaldanayn dalka kama bixi karo warbaahinna lama hadli karo inay aheeda u malaynaya haddii xaalad caafimaad ay timid soo ma wanaagsaneen inta uusan bixin ka hor inuu la xiriiro dadka damaanada ku soo deeyey wasaaradda warfaafinta hay-adaha ay khusayso in uu wargeliyey inuu xaalad caafimaad uga baxayo dalka horta cabdalla axmed muumin xogayaha guud urur saxafiyiinta Soomaaliya SJS nin baxsada ma aha waa nin la yaqaano xafiis leh meel loogu hagaaga leh haddii xaalad caafimaad la soo hagaagtayna wuu bixi karay wuuna soo noqon karay laakiin hadda waxay noqonayaan inaan procedure-kii marno oo abiil aan ka qaadano go'aanka ma bixi karo oo markaas maxkamaddana aan weydiisano inuu baxo laakiin qodobada lagu soo eeday maxay ka mid yihiin waxay ka mid yihiin ka hor imaasho warka dowladda kow 3 qodob lagu soo eeday 321 505 iyo qodob kale qodobada marka waxay yihiin ka hor imaasho warka dowladda marka warka dowladda soo ugu hor yimid dowladda anagu waxaan dhahnay noo fasirto warkan ay soo saartay marka ciddii hadasho waa afsalax ku dhig waa marka waxaan ka codsanaa wasaaradda warfaafinta inay go'aanadeeda dib ugu noqoto warbaahinta madaxa bannaan ay la tashato tixgelisana amniga saxafiyiinta weliba anoo og in saaxiibkii alcadaala uu hadda ka hor isagoo awaamiirtan oo kale ka baxsanaa inuu Jabuuti u baxsaday xaalado amni dartood u baxsaday waxaan ka codsanaa in xaaladii asiga qabsatay 2007 in saxafiyiin kale maanta aysan muqdisho ku qabsanin go'aan asiga oo soo saaray dartiis saaxiibkii waxaan rabaa Bakistan inaan wax yarta su'aalka weydiiyo haddii dawladda wax isku xiran sidaa sheegtay ee soo saartay oo warbaahinta ay u baahan yihiin in wax loo bidhaamiyo oo loo kala saaro loo kala furfuro maxaa diiday in warbaahinta madaxdooda oo Cabdalla Muumin saaxiibkii uu ku jiro in dawladda si hoose ay ula xiriiraan oo wasaaradda warfaafinta ay la xiriiraan oo dhahan warwarkan waan fahmi waayay in aan loo fasiro inta ay warbaahinta la imaan lahaayeen war dawladda ka soo horjeeda oo xilli adagna lagu jiro horta ururada saxaafadda dooda waxay xaq u leeyihiin
haddii dawladdu ay dhahdo si maldahan hadday wax u dhiibto amar waxay xaq u leeyihiin dawladda inay dhahaan hal noo fasirto dawladdu si public ay u hadashay shir jaraa'id ay qabatay shirki jaraa'id ay qabatay cabashaan ka nahaa la yiri warku dawladdu tir waxa u baahnaa fasiraad fasiraadda marka annaga aan u baahanaa maxay tahay haddii lagu dhaho waxaan waa arrin amniga qaranka ka soo horjeedo maxaa ku fasir leed adiga su'aalo weli ah amni qaran waa duuduuban yahay laakiin markii hoos loo galo oo la kala qodobeeyo waxa amniga qaranku noqonayo iyo waxa kale waxa waaye hadhowti waxa la degsan karaa qodobo la isla ku afgartay oo warbaahinta madaxa bannaan iyo wasaaradda faafinta ay isku afgarteen in waxa amniga qaranka loola jeedo la isku afgartay oo qodob 2 2 3 cid ku xad gudubto inay sharciga jabis laakiin taas hadda ma dhicin hadda waxa dhacday amar la dhiibay amarkii cid ka hadasheen waxa la yiri waa afsalax ku dhig lagama hadli karo waa amar dawladeed marka waxa meesha ka muuqata dawladdeenu waa dawlad masaakiin ah waa dareensanahay dhibaatay ku jirtaa dagaal ay ku jirtaa oo al-shabaab ay ku jirtaa laakiin maanta lama joogo xilligii dawladdu ay warbaahinta la diri lahayd waxa la jooga xilligii dawladdu ay warbaahinta garabsan lahayd oo ay intee u wacdo stakeholder xaq leh waa in lala tashado xaq u leh lagala tashado awaamirta ama go'aanada masiiriga ah ee saameynaya warbaahinta madaxa bannaan in lagala tashado xaq ay u leeyihiin in dawladdu ay maarkay warbaahinta madaxa bannaan ay la tashato oo dhimriso isla mar ahaantaana waxa ay ula jeedo awaamirta hadda ay soo saartana la bayaanayo waxa amniga qaranka loola jeedo waxa loola jeedo faafinta wararka al-shabaabka waxa loola jeedo sababtoo waxa la yiri propaganda la isticmaalo waxa propaganda oo al-shabaab loola jeedo naftirkeeda fasiraad u baahan marka waa in warbaahinta madax bannaan iyo dawladdu isku afgartaan waxa propaganda faafin al-shabaab ay tahay la isla garto kadibna la isla qaato go'aan ah qodobkaas cid ku xad gudubto waxay jabisay awaamirta ti Cabdalla Muumin oo soo laabanayna hadda damaanad buu banaanka ku jooga waxa ahayd xogay ururka saxafiyiinta Nusaj saxaafadda iyo arimahan wax badan oo soo joogtay Cabdalla 45 maalin kadib hadii maxkamadda ama kiiskiisa dib loo fiiriyo maxay kula tahay wajiga si lagaaga daaweeyo xanuunada maqaarka sida haaraha wajiga nabraha wajiga ama finanka ka soo baxa cambaarta iyo timadaadashada iyadoo loo adeegsanayo qalab casri ah waxaa ku diyaara dhakhtar khabiir ku ah daweynta cuduradaas horey u gaar Samakaal Hospital oo ku yaala degmada Hodan wixii faahfaahinah lambarka shaashada kaaga muuqda horta garsoorka waxaan ka rajaynaynaa inay u cadaalad falaan waa mid koobaad waa jiraan saraakiil ka tirsan dawladda wasaaradda faafinta ibn Soomaaliya cadaadis ku haay garsoorka sida Cabdalla 3 sano ilaa 5 sano loogu xukumi lahaa xabsi waa la soconaa arrintaas laakiin garsoorka waxaan ka rajaynaynaa in Cabdalla kiiskiisa ay u cadaalad falaan kana dhexdhexaad noqdaan waayo garsoorka Soomaaliya waa meeshii cadaaladda ummadda u raadsan lahayd Cabdalla markuu wuxuu noqonayaa figarkii ama meeshii ay fiirihayeen shacab oo ah haddii Cabdalla waliba maamulka cusub garsoorka cusub gudoomiye cusub la soo magacaabay oo maxkamadda gobolka Banaadir ah iyo gudoomiye cusub oo maxkamadda raafaanka ah labadooda waxaan ka codsanaa waliba aan ka rajaynaa in kiiska Cabdalla ay u cadaalad falaan xeer ilaalinta iyo dawladda wasaaradda faafinta waxaan ayadana aan ugu baaqaa kana codsanaa in eedda ay Cabdalla Muumin ay ku soo eedaysay ee eedooda la noqoto xeer ilaalintana waxaan ka codsanaa in ay la noqdaan eedooda sababtoo ah eedda xeer ilaalintu waxay ka dhaqaaqday dacwadii wasaaradda faafinta marka wasaaradda faafintana waxaan ka codsanaa dacwadooda in noqdaan xeer ilaalintuna eedooda ay la noqoto waa warfar waaya Cabdalla hadii ay dawladda inta hadda aad ka codsatay ee tixgelin waayaan ee Cabdalla xabsi lagu xukumo warbaahinta ma kula tahay in ay joojinayaan wararka ka hor imaanshaha dawladda oo kale si Cabdalla uu aha qof ugu dooda saxafiyiinta oo kale haddii Cabdalla la xiro ma kula tahay in dadka kuwa kale ay joojin doonaan in saxaafadda u doodaan maya kiiskaas hal midaan ka xasuustaa 2013 dawladda Xasan Sheekh xilligaas madaxweyne Xasan Sheekh oo maaragtay oo madax ka ahaa isla sidii Cabdicasiis Koronto wariye la yiraahdo raadiyo darsan u shaqeeya iyo raadiyo Ergo wuxuu wareystay naag la kufsaday
telefishinka Al-Jazeera wuxuu wareystay naagtii la kufsaday oo waliba naagtaas waxa ku sida booliis 7 nin oo booliis ah ay kufsatay dhacday kiiskaas waa la xasuustaa 4 bilood aad dawladda iska dab wareegaysay kiisaska noocaana anagu waxaan u aragnaa inay yihiin warbaahinta iyo dawladda la isku horkeenayo kiiskaas wuxuu ku dhamaaday marka wuxuu ku dhamaaday Cabdicasiis in la sii daayo in islaanti la sii daayo ilaa maxkamadda sare la isla gaaray laakiin 4 bilood la iska daba laalaa dawladdii iyo saxaafadii ay qoorta isugu jiraan oo maalin walba maxkamadda ay dacwo ka socoto kiyo kale marka maanta marka Cabdallah hadlay wuxuu yiri dawladdu ha fasirto waxa ay soo saartay qab waa la xirma taas kuma istaagayso marka difaacidda xorriyadda saxaafadda iyo mid hadalka taas kuma istaagayso annagoo waliba xeerinayno danaha amniga qaranka iyo danaha qaranka annagoo xeerinayno laakiin waa naga go'an tahay inaan sii wadno difaacidda xorriyadda saxaafadda iyo mid hadalka marka tan maxay ku dhamaanay marka tan Cabdallah wixii loo xiro waa u jeednaa wasaaraddu faafinta warkeedu ku hor yimid xabs loo dhigay waa u jeednaa qodobo waxa wasaaraddu faafinta waxay tiri waxa loo haystaa arrimo amni laakiin warqadii aadda booliiska waxay sheegaan inuu ka hor yimid warkii wasaaraddu faafinta marka dawladda anigoo marka dib aan u xasuusinay kiiskii koronto iyo naagtii la kufsaday ee la soo wada xirin jiray in dawladda nafsirkeedu ay dib isugu noqoto oo maarkiino xilligan lama joogo xilligii warbaahintii dawladda la soo horkeen lahaa oo ay eedooda la naqdaan Cabdallahna xorriyadiisa dib loo siiyo wada shaqayn fiicanna ee warbaahinta madaxa banaan ee dawladda ka dhexdhacay su'aasha ugu dambaysa gudoomiyaha ku weydiinaa waxa ay tahay Cabdallah Muumin saaxiibkay hadda xaalad caafimaad oo Nairobi u aaday adigana waxa tahay gudoomiyaha SJS intii uu xirnaa ee uu xabsiga ku jiray ma jirdila loogu geystay ma lagu dhibaateeyay maxaa keenay xaaladda caafimaad ee degdeg ah muxuu ku sheegay markii la soo deeyay xabsiga gudihiisa muxuu kala kulmay horta xaaladda caafimaad xabsiga dhexdiisa ku developay ay kula dhacday labadii beriyo nisa ku xirnayna looyaradiisa waa loo diiday waxa loo diiday inuu arko looyaradiisa qaraabadiisa ehelkiisa cid walba inuu arko waa loo diiday CID-du si fiican ay ula dhaqantay markii CID-da loo soo wareejiyay inuu looyaradiisa la kulmo eheladiisa la kulmo qaraabadiisa la kulmo waa loo ogolaaday inkastoo maalintii dib loo xiray 24 saac xataa raashinka aan loo geeyin oo raashinkii quraacda loo geeyay galabka 12 saac loo geeyay asigoo oo fridge aan la gelinay shiiray waliba loo geeyay waa darasan laakiin si fiican ay ula dhaqmeen booliska Soomaaliyeed waana uga mahad celinaynaa sida ay maartay ula dhaqmeen nabad sugidda marka nabad sugidda maalintii ay qabatay 24 saacadood حتى ما أملينا إنه وصفي عن هالشيء نسي مركا تاس مركا waxay keentay in ماشي بيه نظيف أهل إن كلدي مارتي كلي حنون أو كله إن ألرجيك أو كله اللي هو كبر روح اللي حبس أو كجرا وحاصل نواجران مركا لا هذا ماركينو هذا جرديل واحد مايا واحد جرديل لوجست مجران واحد جرديل لوجست مجران لبض النعبة لما تسوق دي بوليس كمان واحد جرديل لوجست مجران لكن وحن كعد سنينا دولد أنا أقول دولدين دولدي والبهنت مسكور كان مرة وحرنا كيس كان إن الصو أفجر دولدهم إيدي لنا نقطه عبدالله المؤمن حريديس دبلوس عليه لنا بالله وهذا هذا الكسابسن سيدي المستقبل كا والبهنت دولدي ورشقين لاعين أتبع مع سنتهي وحوها قدوميها SJS محمد إبراهيم باكستان وأنا فائدة سنة فرصة إن وحكويديو حريتان كأي حالة صاحب كان عبدالله مؤمن أو حقيقة SJS أو دولة أي مقدشة كحرتي للسعودية هذا نتبحر DC لغة هذا نلسعودية تاني يكون عندي دنبه نبكي